بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ما تاي بشي سغالاد labadeedii 2025 anigoo maaragtay wadanka Faransiiska jooga halkan waxaan ku wareysanayaa gabar walaashaya oo aad kala kulannay arinta xabad isu keentay iska bartay oo maaragtay dhiigayga dhooxayga say sheegeen imika dhalinyarta dambe oo huda leedaho huda soo dhawow waan dhow yahay walaal hoodo weeyaan huda maaha walaal waa sax weeyaan hoodo soo dhawow ku soo dhawow geelteeda soo dhawow waan dhow yahay walaal aad baan u dhow yahay ما شاء الله waxaan ku weydiinayaa hoodo waxaan ku weydiinayaa waxaad xagga u soo martay waa walaalka xabad muuse ayaan u malayn oo u timid deerdaba kolkaasi adiga dad badan oo sharaf leh ilaahay in ilaaliyo fi aakhirabe bal iga waran shooga tagteen sida la inii soo dhaweeyay iyo waxaad kala kulanteen iyo waxaad ka filayseen horta bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan walaalo ay horta aniga iyo gabar walaashaya oo isku xiranahay jirta oo mira malaba la yiraahdo oo wax kasto de wadanka iyo dalka iyo dadkaba loo qabanaya qayb libax ka qaadata ayaanu nahay aniga mira malabo hadaan Djibouti baan ka baxnay diradaan tegnay alxamdulillah ma sha Allah soo qurux badan oo wanaagsan ayaanu loo soo dhameeyay si walaaltinimo ku jirta ayaanu loo soo dhaweeyay si iblaaditinimo ku jirtaan loo soo dhaweeyay wax qurux badan oo indhuhu qabanayaan waa la kulanay anagoo faraxsan ayaana ka imanay ma sha Allah xafladuna si qurux badan ayay u dhacday indhaha macalina meel kasto qabsaday adduunka maanta meel kasta laga daawanayo Facebook haday tahay TikTok haday tahay YouTube haday tahay ma sha Allah waa ka daynaadeen ما شاء الله ما شاء الله magacaago saddex dadku kuma garanayaan adigoo maaragtay waxa TikTok aad ku soo gashaa magacana ay sheegaysid magacaago saddexan ma noo sheegi kartaa ama magacaaga iyo magaca aabaha magacaago saddexan sheegin ba haye walaalo waxa weeyaan magacaygu waa hooda Cabdiraxmaan Carab muwaadilad reeyti ayaanu nahay waa ka ma sha Allah waxa maaragtay itu soo itaabsi adduunkii wuxuu noqday itu soo itaabsi waxa ka dhacay diradaba iyo wixii maaragtay laba qaaqlayaal sidoo sheegay hay ku waxeeyeen labay kala tahay oo taaqabna looma sheegayo maxaad u malaynaysaa ininku dadkaad kaga timaadeen hadday tahay TikToker hadday tahay YouTuber hadday tahay dadkii maaragtay fanka kula jiraayay inta meesha timaday waan ognahay dadkii kale ee asxaabta walaaliha maxaad ku waaninaysaa waxaan ku waaninayaa horta waxa weeyaan in la isku dumnaado oo la iska warhayo oo maanta qofka bilaadanka markuu garab noo baahan yahay la garab istaago oo la garab joogsado waa waajib weeyaan madarkaysa xabadnada ummad muslim oo taalay buu ka dhaxdashay walaal kaligii ma aha shalay Soomaaliya haduu tagay ummadda Soomaaliya walaalihiina waxaan dad walaalo ah dad isku baahan baan nahay ummadaasi anaga karaamad iyo sharaf bay markasta naga mutaystaan waa laba fanaan weeyaan waa labadii fanaanada indhaha macalino xabad markuu dadkiisi dhex yimiday ila maashin birihii baa dhaqaaqaan kuri dadkii iska daayay dhulkii baa guriiraan kuri walaal madarkaysa masha Allah beemkana waxaan ka leeyahay isku duumnida lisaal isku dubay ee iska warhaynayo ee markuu fanaankeenu noo imado aan wala garab joogsanano ayaan ummadoo dhan aan u wala sheegana waxa leenahay fanaankeenna anugunba horta horumar gaarsiin karana anugunba dib u dhigi karayna ما شاء الله ما شاء الله inaan keena aba gabadheena fanka qabsanaysa maalinteeda in la garab istaago oo la garab joogsado oo de bariya galbeed iyo meel kastaba looga imaado anigu horta diyaar baan ilaahay aduu nafta nagu simo ما شاء الله ما شاء الله aad baad u mahadsantahay hadal murtile ayaad ka dhawaaqisay waxa ku jira anigu TikTok-ayga dib ugu noqda waxaan sheegay dad magacooga hadal qaadayn oo rag fanaaniina inay ku jiraan ilaahay afkiisa caalan lagu qabtay waraysiga u dambeeyna uu sheegay inaad dadkii ruwaayada la dhigay la soo wacay shooga ayaantii la dhigay oo bareerku dalaxsanaa dadka maaragtay isqabaynaya ee dhufaysada ku jira ee maaragtay dambi ma galayne isaguna afkiisu ka sheegay oo Soomaali annaka waa Soomaali dayax dar nuurshe iyo Soomaaliya labay kala tahay dayax dar nuurshe Soomaaliya ma Soomaaliya dayax ma ahayn laakiin ninka maaragtay walaalkood wax ku waxeeyay waa laba nin oo qaaqla oo ku bariisaynayay heesihiisa dadka kale isqabaynaya maxaad ka leedahay ku doon ha noqdee
horta qofka isqabeynaya waxaan ku ogsooyin qaas inuu maaragtay waqtigu ka dhacayo hadduu isqabeeyana wuxuu nooga qaadi karaya ma jirto ما خلدمنا قفك بالآدم كو خلدمي كريا ولا قفك خلد كيسا كسو نقدنا وي حبونتا وي قروح بدن tahay qofka isxabeynayna sida uu isku xabeynay hanaga maqnaado wuxuu noo soo kordhinayo ayaaba iska yar iyo wuxuu nagu soo biirinayo madarkaysa ma sha Allah labada fanaana ilaahay xaqaha garsiya leeyahay xabadna waxba ma noqonayo walaal oo waadagii arkay iska daa hoolka dadkii joogay dadkii dibadda joogay ayaa ka badnaa intii hoolka ku jirtay walaalo xabadna calaasha inuu dadkooda u damqanaya intii dibadda joogtay waa ka ugu ballan qaaday inuu show kale uu freeya uu u sameyn doono habeenkii hakii xeer ciise lagu qab xafladii lagu qabtay inuu halka ugu dhigayo ma sha Allah maxaad soo baxday ee meesha joogtay ka soo qayb gal wadaday uu meesha ka buuxsamay ayuu raali gelinayaa ma arkaysaa markastana waxa haboon fanaanka ummadiisa inuu raali geliyo ummadiisa inuu dareemo maaragtay muxubadan iyo kalgacaylkan ay ugu soo baxeen inuguna saguna qaybtiisa uga soo jawaabo way habooneed habeenkii anagu xafladda dhex joognana wuuna ku dhawaaqay ma sha Allah xabad inuu xaflad kale oo bilaash ugu qaban doono insha Allah ما شاء الله shalay waxaan ka raayay maanta waxay tahay mooyane awlaadiisii iyo ooridiisii sharafta lahayd ayuu yiri maaragtay dadkayga intaan soo dhaweynayay maantaan ubadkayga hotelka igu yimaadeen ilaahay ha u ilaaliyo ishana ilaahay ha ka qabto isaguna uu sheegay isagoo maaragtay show labaad qabto ma inuu dir dhab ka soconayn maxaad halkan hawada maxaad u maraysaa xabad ma socolaad waxa kulaana xabado walaalo jiro joog ilxuna kuma aragto hore u sacaan ku leenahay hore u talaabso waxa weeyaan anigu horta waxaan ku qanacsan ku faraxsan ma ku sheega walaalkaygiyo fanaanku markuu shicibkiisa dareensan yahay markuu dadkiisa dareensan yahay waa wallahi waa farxad anaga habeenkii haystii uu ka dhax qaaday showga dhaxdiisa wali iyo bilay ummadii meesha joogto oo kana bay way walooye fanaanin horta warkooga daaba ma arkaysa waayo wuxuu dareemay xabadi inuu dadkiisa u dhex joogo waxaan uga walo dhammaanteen ma arkaysaa xabada guulaysan ku leenahay adeer ixunu kuma aragto hore u soco jiro joog anukuna garab naga day hadaan dadkii walaalaha ay kula dhalanahay ma sha Allah aniguna waxa leeyahay aamin saaxiibkayow aamin baan ku leeyahay xabadow sida ay sheegtay walaashay iyo aniguna ku leenahay maxaad halkan hawada u marnaysaa dadkaad soo wala marteen inta oo kilomitir hadday ugu horeyso saaxiibada kuwii kabeegay gabadha la leeyahay meeran malabo la leeyahay ee businessmanka iyo dadkii kale fanaaniinta ahaa iyo tiktokerada iyo youtuberada halkan maxaad uga maraysaa hawada waxaan leeyahay horta meera malabo gobol walaashaya waa gabar haddaan Djibouti aan wala joogno wala deganahay madarkaysaa hilka aan maanta aan ku midoobnay inaan horumar aan ku sii gaarno maaha kolay laba qof oo halka ku joogan ma nihin ko wata ugu horeysa reer dhabana waxa leeyahay wixii musiga wixii TikTok ay wala joogay isu qurux badan oo soo dhaweeyay anokoona ka soo dhargin waqtiga time-kan ugu yaraa dib aan u soo noqonay waanu ku noqonaynaa hadduu ilaahay ka dhigo waanu u soo soconaa isku duuban yahayna inaan horumar ku gaarsiino maaha insha Allah dib u dhigmayno hadduu ilaahay nafta noo daayo hawsha ay wadaana horaha uga sii wadaan hadduu ilaahay ka dhigo halkan mas'uulkii meer adjunaaga sala sheegay xarbi buux warsamay haddaan qalad galayn mas'uulkii halka ilmahay dhamaadkii joogay ee la sheegay ee la habaleeyay maxaad ka leedahay hawada u marnaysaa xarbi buux walaal xarbi horaan uga soo hadalnay aniga miiran malabo waxa weeyaan horta qofka bilaadanka la iskama amaano walaalo qofkaasi waqtigiisa markaad aragtid iyo waxqabadkiisa markaad aragtid de waa waajib dushayada saaran inaan anigu waxqabadkiisa waxaan ka sheegno ilaa ma habeenkii aragtida showga laga soo baxayay muuladin baan ku iri oo munuu jiifsan oo meesha kamuu tagin amaanka meesha sida loo ilaalinayay askartu sida u taagnaayeen waa hawl usagu ka dambeeyay waa shaqadu usagu ka dambeeyay weeyaan madarkaysa soo maaha maanta waxaan aragnay inaan diri dhabe marti aan ku nahayna waddankaygii aan joogno kale ayaan dareemay sidii nidaamku meesha way u hagaagsaneed ma arkaysaa inta leeg ay isku dhiday iyo nafisa iyo habiye soo galeen xafladii iyo habiye oo qurux badan way ka dareereen
mahad waxa iska leh horta ilaahay kasoo kuna xarbay ninka masuulka hayay yaa walaalo laha ma arkaysaa waxaan leenahay ninkaasi hal ogaado walaalkayga nin la tirsadana uu yahay hawshiisina qayb libax ku qaatay ma arkaysaa madaxu noo saaray haduu ilaahay ka dhigo anoo jeclayna la kulmo time-ka noo saamixi waaya aniga mira malabo insha Allah de aragayga dambe insha Allah aan la fariisano ma sheegsana haduu ilaahay ka dhantahay habalyadana aan gaarsiino insha Allah hawadaan u marayna wad la kulmi doontaa adiga dadka fiican oo dhan ilaahay baa inala kulmin isagoo maaragtay duqa magaalada Diradhaba kala waxaan ku leeyahay dadkii ku soo raacay magacooga aan sheegin isku duubni dadku soo raacin inay yar oo halkan ka bartay sida adiga ku bartay ay ugu qoran tahay la yiraaho king farsi oo maaragtay kolkii waxba dhibaato lagu xii ka hadlay ilama had soo noqonayseen ka hadlay oo tiktokera iyo inta lamida maxaad halkan uga hawada uga marinaysaa intii waqtigu saabixi waayay Diradhaba way waxaan leeyahay hawsha ay ku jiraan iyo difaaca ay wadaan ee qofkooga u difaacayaan u damqanayaan ma arkaysaa Soomaa hambalyaan ka leenahay intaana waa intaan ku yaqaan Reejbuti hadaanu nahay ma arkaysaa anigu mana jeclin qofkayga naga dhaxdashay naga dhaxbeermaday ina la daliilo anigu mana jeclina dadka kale inaan daliilno ma arkaysaa qofkaaga markuu ku taagan yahay walaal inaad u damqatid oo laabta u tumtid waa waajib weeyaan kuwaana bartaan kale iyo hambalyaan kale inta waa intaan lagu yaqaan hadaa Reejbuti nahay ما شاء الله aad baad u maasatay walaashaydii qaaliga ahayd maanta waqtiga ay siisay saad waqtiga ay siisayna Allah waqtiga ku siiyo adiga awlaadaada iyo faamigaagaba guul iyo gobonniba ku rajaynaya waad mahadsantahay jazakallahu khair walaal adna inta tarbiyiga qaaday aad baad u mahadsantahay barasho wanaagsan soo dhawow binaadeer guulayso ifi aakhiraba ilaahay baa iska tusi